السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوستيالي داود يلقصد بهذا برنامج كارا كاس وان uga qayb qaadan doona barnaamijyada maalmaha xorriyada ka bixi doona Haldoor Media Production. Barnaamijkan waa barnaamij gaar ah oo aan ku xusi doono dhalashada Jamhuuriyadda Soomaaliya 26 Juun iyo 1 Luulyo, labadaas maalin oo ah maalmo xambaarsan ahmiyad aad u ballaaran marka loo fiiriyo shacabka Soomaaliyeed, isla markaana ay gaareen horumar aad u weyn. Waa maalintii ka hoos baxeen gumeysiyaalkii ay ku hoos noolaayeen sida Ingiriiska iyo Talyaaniga, iyagoo yeeshay calan midaysan iyo xuduud midaysan. Inkastoo laga joogo bilashada Jamhuuriyadda Soomaaliya nus qarni in ka badan, haddana waxaad moodaa inay wax badan isbedeleen. Dhaxalkii SYL, Dhagax Tuur, Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, Axmed Gurey iyo dhammaan halgamayaalka Soomaaliyeed ee sida tooska ah iyo sida dadban uga qayb qaatay in la lumiyay isla markaana lagu bedelay waxyaabo ka ahmiyad yar iyo calamo kala duwan, iyagoo ummadda Soomaaliyeed 60 sano ka bacdi ay kala yeesheen xuduudo isla markaana ay kala fogaadeen. waa wax aad looga xumaado, isla markaana ayna tahay in laga dhiidhiyo. intaan ku guda jirno barnaamijkan waxaan soo qaadan doonaa qisayaal kooban iyo dhacdooyinkii xilligaas dhacay. qaar ka mid ah anagoo kala tashan doono ama ka xog wareysan doono dad xilligaas joogay iyo kaydkii laga sameeyay iyo intii duubneed ee dadka Soomaaliyeed ay kaydkooda ku hayaan, anagoo soo bandhigi doono qaar ka mid ah qisayaalkii ugu yaabka badnaa ee kala kulmeen dhalinyaradii SYL intay ku jireen halganka bilashada Jamhuuriyadda Soomaaliya. waxaan soo qaadan doonaa shakhsiyaad aan la iloobi karin sida Cabdullaahi Ciise oo ka qayb qaatay isla markaana ahaa mid ka mid ah udubadii ugu waaweynaa ee halganka Soomaaliya. haddaba si macluumaadkaas uu gaaro inta ugu badan ee shacabka Soomaaliyeed ee dhalinyarada, fadlan like noo saar, commentina ha iloobin, share iyo subscribe na waa xaggiina. aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. waxaan idin leenahay hambalyo u diyaar garooba barnaamijka qaybihiisa soo socda iyo maalmaha wadayna u sahay.